tahriibku waa talxumo fadlan ha haligi naftaada. waxa uu si maalinle ah ugu wareegaa wadooyinka xaafadaha iyo goobaha ay dadku ku kulmaan ee magaalada Muqdisho si uu asaagiisa iyo dadka waaweyn ugu wacyigeliyo tahriibka isagoo adeegsanaya hab fudud oo u sahlaysa in uu ku soo jiito dareenka dadweynaha. halka Soomaaliya waxa ugu baaqaya waxay tahay nin walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah inuu wadankiisa u joogo. Axmed Aadan oo wiilkan dhalinyarada ah waxa uu u dhaqdhaqaaqaa la dagaalanka tahriibka. codbaahiyahan uu ku qaylinayo iyo boorar uu ku soo daabacay sawiro ka hadlaya dhibaatooyinka yaala marinka loo maro tahriibka ee dhulka saxaraha isla markaana lagu daabacay halku dhig uu kula dagaalamayo tahriibka kuwaas uu ku dhajiyo gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ay dadku ku kulmaan ayaa u suuragelisa wiilkan in uu wacyigelintan ah la dagaalanka tahriibka uu si maalinlaha u gaarsiiyo kumanaan dad ah halka dadka qaarna uu si toos ah ugu sharaxo sawirada uu wato iyo qataraha tahriibka. ninka badu galay kadibna intuu saas u dhintay maxaa dambeynaysa ooyina u dambeynayso Soomaa ooyina u dambeynayso waalidka wuxuu ku sugnaanaa heer uu yiraahdo ubadkayga waxa uu wacyigelintan ka dhanka ah tahriibka ka soo bilaabay xarumaha qaar ka mid ah degmooyinkan gobolka Banaadir muddo hadda laga joogo 7 sano laakiin habkan uu hadda u adeegsanayo codbaahiyaha iyo sawirada ayuu wadaa muddo 2 bilood ah. Axmed oo ah wiilkaas dhalinyarada ah oo aad aragtaan waxa ay fikradan ah inuu dadka ka wacyigeliyo tahriibka ay ku dhalatay kadib markii isaga uu tahriibay isla markaana uu qatar geliyay nafsadiisa si uu u gaaro mid kamid ah wadamada Carbeed halkaasna uu kala soo kulmay dhibaatooyin badan oo ay kamid yihiin xabsi iyo jirdil dibna lagu soo celiyay dalkiisa. maraan tahriibay Sacuudi Arabiya aan u tahriibay oo aan maray baddaas markaan ka gudbay kadib badda dhexdeeda xanuun fara badan aan kala kulmay jirdil in qolo maleeshiyada ay naafduubteen oo micnaha ay baad naga qaataan oo qaar naga mid xataa la dilay sida marka ka badbaan kadib xero aan galay ayaa waxaan u sii gudubnay inaan ka sii gudbo Yemen oo aan u gudbo Sacuudiga saxaraha markaan gaaray Sacuudiga iyo Yemen u dhaxeeyana waxaan kala kulmay tacdiif fara badan inaan xabsi galo in askartayna garaacaan in xuduudka aan gudbooyno markaan ka gudbay kadib oo Sacuudiga Arabiya aan tagay Muqdisho aan ku soo noqday 2013 aan barnaamij wacyigelin aan sameeyay barnaamijka wacyigelinta markaan gudaha Soomaaliya aan imidna waxaan sameeyay wacyigelin degmooyinka qaar marnaba kama xishoodo in uu ka hadlo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee magaalada Muqdisho wiilkan 20 jirka si uu fariintiisa u faafiyo waxaana jira goobo uu si gaar ah u bartilmaameedsado halkaas uu maalin walba ka sameeyo wacyigelintan. wadankaaga aamin wadalkaaga joog marka waxaan ogaaday hotel xalfad lagu qabto waxa ka qiimo badan in bulshadii mikrofon la qaato oo laamida la dhex maro oo ardaydii meelaha dadku isku yimaada in la tago oo la tusi dhibka uu leeyahay ayaa maanta maraya meelo badan xaafadaha qaar waa dhex galaa meelaha isgoosiyada laamiyaha waan tagaa meelaha dadka isugu yimaadaan jaamacadaha oo kale meel aan tagin ma jirto meelaha baabuurta laga raaco waan tagaa marka mikrofonkayga wata waxa adeegsanaa waa mikrofon iyo sawir marka dad qaar way jiraan qaar alaasi oo iga caawiyeen waraaqaha saa ku heli lahaa marka laakiin ma haysto garab kale buuxda oo arinkan ay ii fududeyn kara inaan mar walba joogto ka dhigto inkastoo aysan jirin cid si buuxda uga taageerta Axmed barnaamijkan haddana waxa uu rajaynayaa in uu rumeeyo riyooyinkiisa oo ah in dadka Soomaaliyeed uu ka joojiyo tahriibka. Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho.